dadka ina u wacnay dareemay دكتور إن هذا هاي الدبيب الدريمي ذهب يدور حلا هاي ضعيف في أودا دفري نفتي ذي دعان كالميسن بلنا ندبه العد كاجي وأنتو عايزين أصلات ليل بتكن مركويل واي سندبه العد كاجي ديبو دعاء دم قاي يدرن مقناشها دوشان كتشوغا فرحدة دibadaan ka muujiya qosolka deerkay gudaha dabiya naar baa ka shay dadka chief u dareeray habeenkuna dumay daayay hurdada anigu darta dariishadan ka eegaya dayaxii samada dusheedaan daawada inaad dul joogto sidoo waxa ku jirtay markii wiil gabadhu waayo saaxiibteedii buu wacay markaa wuu yiri gabadhii heble ahayd meeday wuu weydiinay ha markuu wuxuu leeyahay daahistaada dadka soo kumaan weydiin bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan idilkiin ku soo dhawaada barnaamijka fiyaadi fagaaraha oo toddobaadkan ay martin ugu tahay Sawda Cabdixakiin Tahliil waxa ay kamid tahay gabdhaha da'yarta ee waxbarashada wali ku jira sidoo kalena ah dhalinyarada hibada leh oo ay ka dhex guuxayso hibada Sawda Cabdixakiin ayaa nala soo xiriirtay iyadoona jeclaysatay inay nala wadaagto hibadeeda isla markaasna bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigto Sawda waa ku mahadcelinaya waana ku faraxsanahay inaad qayb nagala noqoto barnaamijka fiyaadi fagaaraha marka hore ku soo dhaw barnaamijka oo ku dhawahay barnaamijka fiyaadi fagaaraha waxaan aad ugu mahadcelinayaa maadaama codsiga soo ajiibteen si aan bulshada hibadeeda iyo waxa aan qabo ugu soo bandhigo ayna qayb uga noqdo dadka hal abuurka leh ka soo jeeda gobolkeenan Galmudug aad ugu dhawahay barnaamijka waa mahadsantahay Sawda waxaan jecelahay inaan ku bilaabo marka hore Sawda Cabdixakiin waa tu horta su'aashaada iguma cusba in la weydiiyo oo hore la weydiiyay intaan su'aashaada ka jawaabin waxa jirtay sheeko aan kala kulmay su'aashan oo kale la weydiiyay had koor sida ku sheegay waxaana qof wiil waxbarashada ku jira dhowr bilood ka hor anagoo joognaa goob waxbarasho aniga iyo dhowr qof asxaabteeda kamida kuna jirna tartan baa waxa soo gashay su'aalihiina la weydiinayay su'aalahayd suugaanta yani su'aashu waxay ahayd alanada markaasna la weydiiyay alanada ku jira hala sheego maadaama hadii alanada ku jira aad garatid aad aqoonsanaysid godka maansado ay tahay marka waa isfiirno marka dhalinyaro leeyahayna waa la ogaay suugaanta sida looguma badnay waxa la yiri yaa garanayo su'aashaas u deynaa marka ana isku beemis waa iri hal iiday ana garanay kadib markii aan su'aasha alxamdulillah waa sax horta markaas maalintaasna waxay ahayd su'aalan ku guuleysana su'aashan ka jawaabay kadib markii tartankii noo soo dhamaaday anagoo kaftameeno dibadda joogno tartanka markaa ka soo baxnay baa waxa la yiri Sawda Cabdixakiin iskaaya bar maadaama abwaanad isku sheegta maanta markaas maansir ku jawaabo waxa sideedaba Sawda la yiraahdaa sagalna aniga ah ragana waa la igu sifeeyo boqol baa la igu sameeyay hibana waan ku soo canay sida ay garo marka hadan su'aashaada ka jawaabo marka labaad su'aashaada ka jawaabo Sawda Cabdixakiin waa gabar da'yar ah ku dhalatay ku barbaartay ku hana qaatay ku hal abuurtay ku nool isla magaaladeeda Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waana qof bulshadeeda ku dhex jirta oo hal abuur ah qoraa ah iyo intii kale adigu oo taqaanid waa ku mahadcelinayaa markale Sawda waana ku faraxsanahay inaad galabta bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed baad la wadaagayso hal abuurkaaga Sawda goormay kugu dhalatay ama aad ogaatay inaad tahay qof hal abuura oo wax urur kara horta soo ma dhawaan markaas adiga inkastoo markaas aan aad u da'yara oo inta hadda garaadkeyga iyo qofnimadeedu dhan tahay aan dhameen waxay ahayd bilawgii 2018 sidaas ay istaan jeclahay horta marka taariikhda ma xasuusto laakiin bilawgii adiga bishii saddexaad 2018 sidaas ay ahayd ma nala wadaagi kartaa wixii ugu horeeyay aad isku dayday bilawgii horta markaas aniga ahaan waxaan sameeyay maanso aan iskuulkayga ku amaanayay inkastoo hadda aad aan u sii xasuusan oo ay kamid ahaayeen afku waalide ini waxay ka timaadaa waxaan aragti ahayn erayna waa halkiisa hadii runta la isku asteenayo
ablaalnimaan digin aqoon xagiisa ma ahaato marka aad ay u dheereed laakiin hadda sida uma sii xasuusto markiina diwaan ma gelinin waa kaasa way marka sawda maansadaas aad ku bilaawday dabcan waa bilowgaagi maxaa ku xigay horta waxaa ku xigtay oo ii soo labeysay maanso la yiraahdo cirkaan maray horta maansadaas qisay ugu leedahay caadi ahaan qofka abwaanka waxaa kamid ah haybadihiisa oo ilaahay ku manaysto inuu qofkaas dareenada u nugul yahay oo qofkan hadduu qiso ku soo bandhigo kale dareenkiisa aad xurin kartid oo adiga iska matali kartid marka horta maansadan cirkaan maray xaqiiq ahaan waxa gabar aad iskugu dhow qisadeeda ahayd waxaa jira wiil ay xiriir wadaag ahaayeen oo magaaladana ku ahaa marti shaqo ahaan u joogay kadib markii shaqooyinkii u dhamaadeen wuxuu dib ugu laabtay magaaladiisii uu ka imaaday markuu magaaladii ku laabtay yani gabadhii wiilkii waxay ku aragtay isbedel fara badan inuu yani sidii iska bedelay oo sidii hore ahayn oo maxaa la dhahaa oo yani bilaabayo meermeer iyo inuu dumar kale la haasaawo iyo mashquul saa'ida markay weydiisana wuxuu yiraahdaa cirka baa maray marka ayada say igu sheegtay marka aan uga sameeyay qisada maasada waxay noqonaysaa cirka hadaad martay aniguna caadkaan maray carada hadaad socotay aniguna ciidan dhinac ka joogay anoo adiga ku calmaday qashka ku hayo ku caashaqay adaa iga caajiso agteeda ka caagi ciil tira adaa noqon waayay ciil ma qaba hadaan curad ku sidii ciishoon maayo hadaan cunugaaga hayn codka dheer iyo cabashada waxa iga keenay ciladaadi dhigtay jacaylka igu ciyaaray adooni caawinin caashaqay dhaawacay awo hore igu beertay aqligeygii xaday hadal caloosha ku jiriye murti baan cadeeyay oqdad inaan qaadiyo calool fadhi iska dhowray hadaad sii cishin isku codkayga jeceshahay ama caashaqay sadaan cidla kugu dhowraya ishooyin badan waan lahaa codkii ujeedka cadee caawisa waan ciil bixi col soo duuliya cadow maahi waxaana cadayda jecleed Aisha ku magac dheereed eblaaw cid baad ka dhalatay caana يعني markaan sida leeyahay waxay markii ay la dooday oo gabadhii maseer galay oo tirma halka marka tagtay waa isbedeshay yani wuxuu ku jawaabay qalb magaaladaada yani oo sida ahayd oo arrimaha afka ku habooneen baan ka yimid oo yani dhanka qabiil uu la aaday marka maansada say uu sheegtay sheekada markaan ka sameeyay waxa ay eblaaw cid baad ka dhalatay caana aniguna caasimadii baan ka dhashay dalashadeedu waa sumcada dad sinjiga ka carartay ama aan xuural cayn yahayn tu dhabanacad oo ka cabsanaysa dirac inaan ahayn curad ku siin karta caawa fasax baatay cagacaga ciribta dhulka saare hadalkaas hadaan dib u celiyo cirkooda ay cawskii baxay abaarta la ciirsaday cidla ruuxii dareema caashiq yaqaanee iyo codeeyo caawadaan caawa cid lagu dhowrayaay marka maasadu intaas ay ahayd walow hadda ay sanaheen oo ay tahay 2019 dhamaadkeeda qiyaas ahaan ayaa sameysay way markii maansadaas aad u sameysay gabadhii yarkii halkii ku dambeeyay yarkii horta yani sidii iska muusa bedelin markaan u sameeyay oo maansada ay ula tagtana wax macnaa muusan ka soo qaadin oo marka la ii timid oo waxaan u sameeyay maanso kale oo ayadana dhahaysay markii yani ay sidii maansada ula tagtay hadalkeedu waxa muusan ka soo qaadin yani wuxuu ka dhigay qof hadlaya ileen marka yani qof marka waxa la yiri dagal la leerta u duleela laafta ka awdan marka maanso kale u sameeyay oo ayadana waxa la yiraahdaa bilii hore markii gabadhii ayaan joogtay oo ay wiilkii ka maarantay oo yani iska ilowday xiriirkiisa iyo wixii u qabtaba ay nafteeda dhiirigeliso yani isku dayday inay ilowdo gudib ugu soo laabtay marka maansada ayadana waxay leedahay bilii hore markaan ku bukay baan ku lahaa adaa iga beero beedkaaga joogiri boqolaal dumar ah jirto beeso ku dheer barigaana waa ka baahi xukuuma baahni bogsooday waa aniga biladeeda beledka la yaabay baxsan baan hay hadeer markaan boqor ka dhigay adaa iga boodo bala doontay baleeg barigaan beertaada ruux kala booqan baalaha ku fidsan oo boobine yani markaas waxay leedahay beertaada waxay ka wadaa qofkii qalbigii ku jeclaay waxa ku beeratay maanta uu ku iloobay qof kale baa bogsiiyay marka waxay leedahay adaa iga boodo bala doontay baleeg barigaan beertaada ruux kala booqan oo baalaha ku fidsan oo boobine badanka jirkayga hadaad bari ahaan jirtay beerkaba waan ka diray
jacaylkuba wuxuu noqday been iyo propaganda waxaan jirinay barkamataale buuro dheer hadaad is saartay aniguna rag buufiskiisa boolada caashiqa ka baxay baay baan waan baal maray marka waa intaas yani maasadaasna waa waxay u sheegaysaa inay ka maarantay oo hadda aysan u baahneen oo yani jacaylkii u qabtay iyo wixii gudaheeda ku jiray bay loo siisay inay ka bogsootay waaya sidoo kale waxaa jirtay maansa kale aad tirisay isla jacaylka maxay ku timid bal maxay ku timid qisadeeda haddana la wadaagay qisada maasadaas waxaa la yiraahdaa xiisahaaga ii darnaa oo yani waxay muujinaysaa qof inta loo xiisay aad loo tabay oo yani qalbi u bohliyoobay oo kale si ahaan hadaa u sheegana maasadaas yani xaggayga waxay ka ahayd xujo oo qof asxaabteeda kamida baa igu xijiyay wuxuu yiraahdaa dad abwaan tahay maanta maasadaas baa kaaga baahanaa qisaduna waa sidaas marka adiga waxay ahayd 15 May marka maasada aan sameeynayo laakiin dhacdadan ka sameeynayo waxay dhacday 13 May 2022 sanadkii soo dhaafay markaas adiga waxa dhacday magaaladeena hadeer aan joogno Dhuusamareeb inuu ka dhacay dagaal intii joogtay way xasuusatay dagaal baa ka dhacay wuxuu socday 12 saacadood 13 May maalin Jimcaha bay ahayd gabadha markaa u sameeynayna waa 15 May oo markii madaxweynaha Soomaaliya hadda joogo xilka ay la dooranayay markii yani gabadhii uu dagaalkii dhacay way baxeen oo yani magaalada bay dibadda uga baxeen meel haduu dagaal ka dhacaan lama joogi karo ileen markay baxeen wiilkiina uu magaalo kala joogo yani waa laba qof oo xiriir ku balantay guur oo nolol isla rajeynaysay hadda way isguursadeen marka wiilku magaalo kale maadaama uu joogo gabadhana intay ku sugneed gabadha markay u baxeen baadiyaha oo ay ka qaxeen colaadii dagaaladii iyo wixii jirin waxay baadiyaha ku maqnaayeen ama miyiga 4 maalin iyo hoogaha adiga 4 maalin iyo maalin kilinkeed marka meesha la tagana meel aan teelo leh ma ahayn internet ma lahan meel laga soo wada xiriir ma leh laba qof oo yani wax ka dhaxayaan waa dareemi kartaa marka waa liigu xujiyay waxa la yiraahdaa abwaan tahay maansa ka soo sameey qisadaas marka waxa iri marka hor maansada horta yani uma aan baqaadin dareenka tooska ah sababta waxa waa qofkani inay guul asaga u tahay waxa uu haminayo ilaa qofkii baa ka maqanay qof baad ka maqanto kala weeye marka waxa iri degdeg kuma imaato guushu dib bay martaay daqiiqaday qaadataa daaha inaad ka rogtaay daris la noqo samirka dejiniyada dulqaadka dahab noqo xilliga duruufta darbi aan dumayn dabaal ha noqon waayuhu dilaane diiri naftaada oo hadiidin xanuunka door noqo loo wada duubta tanka hadalkiisa oo yani marka waxa uu leeyahay is adkeeyo dadka dhexgal la qaybso sheekada dadka ha wada duubtaan door noqo loo wada duubto macna waa qof xula noqo oo sheekadiisa loo soo fadhiisto oo la dhageysto marka haddaan sii wada maasada waxay leedahay door noqon loo wada duubto tanka hadalkiisa daadaa ka weynoo dadka ha ku eegtee daal ha ka muujin doonistaada diiftii kaa muuqan adiga dowguu saxnaan doonaaye yacni dhib iyo daalyuusa kaa muuqan wixii aad rabto waa helaysaay dariiqaaga haduweyne bartaad deganow adigu darajaad heli doontaa goor aad danaynaysee dabaaldega muuji dega adigoo jooga yani adigoo isdhiibino adigoo naftaadii xanuun dareemayso dabaaldeg muuji iyo waxaa rabti inaad haysato daciif ha noqon laga dareeray dilaal ha ka noqon farxadaada yani ha noqon qof farxadiisa ha noqon laga dareeray dabeecad yeela dunyada la dhaqankeeda doodaha damana iska noqon la iska diiday dabeecad yeela dunyada la dhaqankeeda daboolha saarin daduubtaada dibadda keen يعني قف كان إنا قف معاشقة هاي شيء كون قاعد تكلم وذاك ساعة بربلام يو ودريم وايا دت كتوس ديرة دين عدلات هاي يعني دت كان مركز لا تشوكتيت ولا شيء كيسنا يو وحسب الدنيا سيدا وكل إسكره مركز وكنا في سنة وقتها رجعنا وحالي هذا وحي بدأوا عشان يعني وحي لنا نرجع تشيل لو قمت تلقين مو يعني أنت بدن مركز هذا ما صار وحي لا تدل مركز سنة وحن دروس لو قديان يعني قلبigaaga waxa ku jira moogta dadku ma ogaan karaan adiga dul maro soo saar way dabiib nafta uga dhig macnaha waxa weeyeen markaan leeyahay dumarku samay waxaan duruus lagu dhigan marka dhiirigelintiisa ku eg tahay oo wuxuu leeyahay qofkii yani qofka iska matagay moogta dabiib naftaan uga dhiga ruuxdan ku dajiya eray dawaaleedkaas yani nafteedan ku sabaa intaas dib u dhacaaga ay damqaay ee daran maqnaashahaagu dushan ka jooga farxadda dibaddan ka muujiya qosolka
deerkayga gudahana dab iyo naar baa ka shidan يعني waxa qof qalbiga ka jiran oo Ka gubanaya. xiisahaaga way dhibaya maqnaashahaaga waay dareenka ii ka nuguleeyo ku ildarna adiga oo ku jirana adiga dareenka ii ka jilciyay waay danta iyo ka xireysa caashaq baa ii ka diraaya danta iyo waxa naga dhaxeeya iyo ka xiraayo caashaq baa ii ka yani waa ku jeclaaway dareenka iyo ka hagaayo xiisahaaga ay diraaya marka ma sida magac dalkaas u ka yimid dareen iyo ka hagaayo xiisahaaga ay diraaya dadku iimo oo kala aan ku daha fikirka dadku iimo oo kala aan ku daha fikirka deemadaan u badiyay geesaha ilmadan iska duugaa daamanka masaxa dadku si aanay ii garan dadkoo jiif u dareeray habeenkuna dumay daayay hurdada anigu dartaa dariishadan ka eegaya dayaxii samada dusheedaan daawada inaad dul joogto yani markaan ku xiiso oo dadku iga jiiftaan oo kaliya aan noqdo baan dariishada dayaxa ka eega sida dul joogto kale daris inkastoo aan ahayn degmana kula joogin dalkaan ku kala dheernaay waan ku dugsaday yani inkastoo iga dheertahay oo aan kula joogin haddana yaa ku dugso jiro codkaaga iyo hadalkaaga baa wax ii ahaa waay daahistaada dadka Soomaan ku weydiin yani marka qisada waxa ku jirtay markii wiil gabadh waayo saaxiibteedii buu wacay marka uu yiri gabadhii heble ahayd meeday oo weydiinay ha marka wuxuu leeyahay daahistaada dadka Soomaan weydiin door saaxiibkaaga Soomaan dul wareegin daawo kolay ii noqoto xiisuhuna iga dagaay damaashaadka waqtigeeni dib soo uga maan furan door xasuusan iyada deganeed يعني وقتي أنا وذا فرحي جرنا وش لهذه جرنا سو نيجي دبوا معهم فرندور حسوسة تذكرنا أو عن الدرامة دكتورنا هذا هاي الدبيب الدرامة ذهب يدور حول هذا هاي ضعيف أو ذا دفري نفتي ذي دعان كان ميسن بلنا ندبوا هالعد كاجي وانتو عايزين صلاة الليل بتكن مركويل waay سندبوا هالعد كاجي codkaagii ها مركا قبل ما صار يدرسنا ده داونسو waay وحرجينا حجينا إنك صباحي